macallin aan wax ka dhigan jiray ayaa wuxuu i siiyey 2 talo oo aad iyo aad u wanaagsan oo run ahaantii wax badan aan ka faa'iiday. Wuxuu idhi, "Haddii aad doonaysid inaad wax kororsatid oo cilmigaagu kordho, adigoon dareensanayn oo aan tacab badan ku bixinayn, labadan shay samee." Ta koobaad waxay tahay wuxuu idhi, "Mar kasta oo aad meel tegtid, meel dad ay iskugu yimaadeen, ha ahaato fasal, ha ahaato jaamacad, ha ahaato iskuul, dhegaysigaaga iyo hadalkaagu ha kala bataan." Sababtu waxay tahay markaasi mar kasta ood hadashid, waxaad dib u sheegaysaa un wixii aad hore u ogeyd. Laakiin markaad dhegaysatid, waxay u badan tahay wax aanad garanayn inaad kororsatid. Sidaa awgeed, mar walba dhegaysigaaga, iyo hadalkaagu ha kala bataan, oo dhegaysigaagu ha ka bato hadalkaaga. Qodobka labaadina waxa weeyaan, wuxuu idhi, "Marba haddii aad hadlaysid, su'aal ha noqoto oo su'aalahaagu ha bataan." Sababtu waxay tahay mar kastoo aad su'aal weydiisid, muxuu ahaa dadka macallinkaaga, amaba muxuu ahaa meesha aad joogtid, waxay u badan tahay jawaabta lagu siinayaa inay noqoto amaba ay ku jirto waxaanad markii hore u ogeyn oo halka aad wax ka kororsatid. Su'aaluhuna waxay ka mid yihiin qaabka ugu sahlan ee qofku ma garanaysaa uu cilmigiisa ku kordhin karo. Oo haddii su'aalahaagu bataan, oo dadka aad weydiisid tusaale ahaan wixii aanad garanayn, waxay u badan tahay inaad markaasi, jawaab heshid, ku anfacda. Taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay haddii tusaale ahaan aad haysid su'aal aad isleedahay dadka kula yaabi doona, amaba kugu qosli doona oo odhan doona waa maxay su'aasha noocani, inaanad su'aalaha la xishoon oo aanad is odhan muxuu ahaa, dad baa kula yaabi doona ama su'aal xun weeyaan amaba sidan iyo sidan. Run ahaantiina qofku markuu isaga qasdigiisu ay tahay inuu wax kororsado, liiska uguma jirto wax la dhahdo su'aal xun iyo su'aal wanaagsan. Su'aashii kugu soo dhacda, wixii ma garanaysaa aanad garanaynba, waa qof ma garanaysaa weydiinaya, ku dhiiranaya oo su'aashii soo gudbinaya.